وصباحنimo Arbacada taariikhduna ay ku beegan tahay 14 bisha Dhulxijja 1443 Hijri kusoo dhawaada dhageystayaal warkii oo faahfaahsan Sheekh Nuur Macalin Cabdiraxmaan oo kamid ah culimada rabbaaniyiinta ayaa geeriyooday iyadoo sheekha uu ahaa caalim zaahid ah walaalkeen Faysal Xasan Cali ayaan ka wareysanay geerida sheekha bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi alladhi tafarrada bil baqa wa kataba ala cibaadihi al fanaa جعل الدنيا دار امتحان وابتلاء والآخرة دار نعيم أو شقاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إنا لله وإنا إليه راجعون وحان أمد مسلم كأسو قد بنينا قيردا الشيخ عالم أو كمدا علماء المسلمين تأو قيريو دي ساعده لصورافي شيخ خاص أو شيخ أدوى التقانان الشيخ نور معلن عبد الرحمن أو كمدا علماء المسلمين تقوى أقوى وين حقنا لجهري مدردر dacwada iyo diintana faafinayay ilaa Allah ugu dambeyntii uu oofsaday sida ay noo xaqiijiyeen eheladiisa sheekha ayaa xanuunsanayay toddobaadyadii ugu dambeeyay wuxuuna la xanuunsanayay oo uu la jiifay cudurka sokorta oo uu la dhibanaa waqtiyadii ugu dambeeyay ee cimrigiisa waxayna inoo sheegeen eheladiisa in sheekha loo soo qaaday isbitaal si loola tacaalo xaaladiisa caafimaad balse isagoo aan isbitaalka la geynin in Allah uu oofsaday sidaasna uu ku geeriyooday waxa dadkii la socday iyo eheladiisu ay noo sheegeen in sheekhu uu Allah waafajiyay khaatumo wanaagsan isla markaana laxadaadkii ugu dambeeyay ee ay naftu ka sii bixisay in uu tafsiirayay suuratul casri isla markaana dadkii hareerihiisa joogay ee la tacaalayay uu wacdinayay isla markaana uu waaninayay waxay noo sheegeen in marna miirka uu ka tagayay marna uu ku soo noqonayay mar waliba oo uu miirka u soo noqdo in suurada tafsiirkeeda uu bilaabayay marka uu tafsiiro ee in muddaha uu tafsiiro kadibna miirka ayaa ka tagayay kadib haddana tafsiirkii ayuu ku soo noqonayay marka uu miirka u soo noqdo sidaas isagoo ah ayaa waxay eheladu inoo sheegeen in ugu dambeyntii uu aamusay markii ay damceen in ay fiiriyaan xaaladiisana wuxuu ku dhawaaqay shahaadateynka sidaas ayuuna Allah ku oofsaday sheekheena caalimkeena Sheekh Nuur Macalin Cabdiraxmaan Allah u naxariistay Allah waxaan weydiisanaynaa inuu u dambi dhaafo naxariistiisa ka waraabiyo jannadkiisana ku martiqaado xaqiiqatan dabcan fadligiisa iyo qiimihiisa halkan laguma soo koobi karo wuxuu ahaa sheekh caalim ah oo juhdi iyo dadaal iyo mas'uuliyad ka badan culimada intooda kale iska saariyay faafinta iyo fidinta dacwada islaamka wuxuu leeyahay muxaadaraad iyo duruus aad u fara badan oo kaydadka maktabadaha islaamiga ah ee ceegaagta duruus joogto ah ayuu ku lahaa idaacadaha islaamiga maalmo ka hor waxaa inoo soo gabagaboobay duruus taxana ah oo silsilad ah oo uu inooga diyaariyay fadliga 10 hore ee bishan aanu ku guda jirno oo uu kaga hadlayay acmaasha ay tahay in dadka muslimiinta ah ay qabtaan inta lagu guda jiro maalmahan 10 ah sidoo kale idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan wuxuu ku lahaa barnaamij kale oo taxana ah oo la yiraahdo dhuux quraanka oo ku dhaqan oo isagana ahaa barnaamij taxana ah oo in muddo ah sheekhu uu jeedinayay marka wuxuu ahaa dacwada fidinteeda faafinteeda safka hore uga jiray in la isku wado barashada iyo dhaqan gelinta diintana si aad u boorin jiray dabcan Allah waxaan weydiisanaynaa in uu ka abaal mariyo wanaaga iyo fadliga weyn ee bulshada muslimka ah uu u galay waxaana xusid mudan in geerida culimada muslimiinta ay kamid tahay masaa'ibta ugu waaweyn ee Allah umada uu ku ibtiriyo waana sidaas oo sababtoo ah Allah marka uu leeyahay awalam yaraw anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha waxay culimadu ku tilmaamaan in naqsigaas iyo nuqsaantaas quraanku uu sheegayo ay tahay geerida culimada sida mujaahid iyo culimo badan ay aayadaasi ku tafsiirinayaan waxa sidoo kale Umar uu oran jiray mawtu alf aabidin ahwanu min mawti aalimin basirin bihalalillahi wa haramihi kun qof oo caabida in ay geeriyooto ayaa ka fudud buu leeyahay in uu geeriyoodo qof caalim ah ibn qayyimna sababta isagoo si raacinaya wuxuu leeyahay kun qof oo caabid ah cibaadadooda waa wax iyaga ku kooban laakiin hal qof oo hal caalim oo culimada muslimiinta kamid ah cilmigiisa ayaa laga yaabaa in uu ku hanuuniyo kumanaan uu iblis duufsan lahaa marka geerida culimada waa musiibo kamid ah masaa'ibta ummadda waxaana qabdiga cilmiga ee uu nabigu sallallahu alayhi wasallam ka digay uu ku tilmaamay cilmiga qabashadiisu aysan ahayn qabasho cilmiga la qabanaya ay tahay geerida culimadooda marka musiibadan weyn ee jalalka ah waxaan Allah ee ummadda muslimka ugu baryaynaa inuu ka qafiifiyo culimadeedana u daa'im yeelo qof waliba oo miisaan iyo mug culus bulshada muslimka dhexdeeda ku dhexleena dabcan geeridiisu waa musiibo ummadda muslimka ah oo idil Allah waxaan weydiisanaynaa inuu sheekheena u naxariisto badal khayr qabanana siiyo annaguna uusan gadaashiisna fidnaynin